السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka Engineer Axmed Kamaando saac maanku ku soo aragteen fiidiyogan wuxuu la socdaa fiidiyadani hore muxuu ahaa waa qaybtii labaad oo aan kaga hadli doono waxa ku xiga BIQ-ga iyo marka drawing la sameeyo run ahaantii fiidiyogan inuu dheeraado ma rabo waxoogaa site ka hor inta la tegin waxyaabo loo baahan yahay yani in la qabto oo ay muhiim tahay qofka engineerka ama qofka contractorku inuu ogaado ayaan xaggan kaga hadlaynaa insha Allah saddex qodobna weeyaan qodobka koowaad waxa weeyaan shuruucda loo maro yani mashruuci markaad qof ka qaadatid aad labadiini connection baa maraya ama waxbaad kala iibsanaysiin ganacsi baan dhex maraya so sidii sifada sharciga loo maro iyo habka lacagaha loo soo sii daayo iyo habka lacagaha loo kala qaato waxyaabahaas oo dhan baan kaga hadlaynaa qodobkaas qodobka labaad ee xigana waxa weeyaan waa shaqaalaha oo master important one xabadaasi shaqaaluhuna waa very complicated muxuu ahaa aad bay u adag tahay yani in maamulkeegu markaa qodobka labaadna kaasaan kaga hadlaynaa qodobka saddexaadna waxaan kaga hadlaynaa materialkii oo isna muhiim ah in laga hadlo maadaama aad materialku uu ku xiran yahay yani main part uu yahay guriga lagu dhisayo run ahaantiisaan horey inuu soo sheegay marka BIQ-ga la dhameeyo sidoo kale la dhameeyo drawingkii qofkii waxaa ku imanaya muxuu ahaa macmiilkii markuu ku yimaado aad isla afgaratiin aad wixii oo dhan wada tustid drawingkii siduu noqonayay gurigiisu nashqadii oo dhan planningkii oo dhan markaad tustid kadib uu ku qanco ayaad in aad israacdin oo aad tagtiin muxuu ahaa xarunta loo yaqaano sharciga ee notaayada oo aad kala saxaaxatiin contractkii xaggaas oo lagu xusi doono waraaqada aad kala saxaaxanaysiin ee notaayada ah muddada uu ku dhammaynayo mashruuca noocuu yahay iyo sidoo kale qiimaha uu ku qaatay iyo waqtiga intaasaa lagu xusayaa sidoo kale waxaa muhiim ah oo lagu xusaa yani lacagta saad u kala qaadanaysay qaabka u kala qaadanaysiin run ahaantii horta ma dhacdo in yani ama shirkad ahaan ama qof contract uu yiraaho lacagtiisa wada qadim si aan guriga kugu dhiso ma dhacdo laakiin percentage baa jira qofka loo soo sii daayo ka hor yani inta mashruuc bilowmin percentage-kaas oo ah boqolkiiba 40 intaas ku waafaqdeen inta ugu badan boqolkiiba 40 baa qofka la siisiyaa kadib buu ku biloobaa marka uu jingada gaaro uu dhamaado jaajuurku ayaa haddana 30 la bixiyaa run ahaantii qaabkaas loo maamulaa lacagta laakiin muhiimadu waa inaad isfahantiin in qofkii aad wax u dhisaysay iyo sida sharciga ah aad wada martiin oo tahay aan imanna talabaad oo ah shaqaaluhu run ahaantii haddaad shirkad tahay kolley shaqaalo waad haysanaysaa laakiin haddaad suuqa ku cusub tahay ama aad horey ugu sii jirtay laakiin haddana shaqaale aadnad haysan shaqaalo waa ma adko laakiin haddana waa ugu yar dhibaatada badan haddaa dhinac loo eego ka engineer ahaan horta aad ma maamuli kartid shaqaalahaaga oo dhan yani waxbaa u sheegi kartaa laakiin ma maamuli kartid yani 20 shaqaalo dhan ama wax ka badan ayaa ina galaa meesha laga yaabaa marka waxaad u baahan tahay one foreman oo foremankaas oo ah yani inii dhaxaynaya adiga iyo shaqaalaha adigu waxaad amraysaa foreman-kuna isna shaqaaluhu sii amraya oo uu sii diraya yani meelaha uu qabanayo marka shaqadooyinka la qabanayo dhan adaa ka mas'uula laakiin foreman-ku wuxuu hagayaa shaqaalaha uu ku hagayaa run ahaantiin waa adag tahay in waxaasoo shaqaalaha yani miishaarkoogii sidoo kale tacaamulkoogii waxaasoo dhan in aad isku wadid so foreman-kaasi wuxuu kaa caawinayaa in uu shaqaalihii uu muxuuha ku maamulo oo uu nin walba u sheego yani shaqadu qabanaya hadduu noqoto broli haddii wastaadkii noqoto kooligii noqoto run ahaantii kaasaa ugu muhiimsan shaqaalahana run ahaantii inta magaalooyinka badan dee way iska jiraan dhalinyaro shaqaysato dad shaqaysta lama waayo laakiin muhiimadu yani waa inaad professionals heshid qof yani horey usii shaqeeyay oo kale si ay shaqadii hore kugu qabsoonto oo kale waxaasoo dhan baa u baahan tahay videoga inaa dheerey maraba ta saddexaad oo ah in
waa materialkii. run ahaantii materialku waa very complicated isagu, muxuu ahaa dee weliba isaga wax hal meel laga soo helayo maaha, yani hal bakhaar laga soo helayo maaha. materialka markaan idhaahno waxaa imanaysa ciidii baa imanaysa, niiskii baa imanaya, jaajuurkii baa imanaya, jingadii, waxaasoo dhan baa imanaya. iyaga waxaa laga soo helaa different parties. saa hore inuu igu soo sheegayna yani lacagtu hal mar lama wada shuba, laakiin percentage aad ku bilowdid ayaa lagu soo saaraya. sababta ugu muhiimsan waa in aad yeelatid macmiil, qof macmiil bakhaar aad macmiil u tahay, sidoo kale qof niista kuu soo qaado macmiil u tahay, sidoo kale qof biyihii kuu soo qaado kale waad u baahan tahay. yani waxyaabahaasoo dhan in aad qof macmiil ka dhigatid waa laga maarmaan. sidoo kale waxaa ugu muhiimsan yani bakhaaradoo kale waxay xisaabiyaan, yani waxay sameeyaan oo kale, yani gurigii waa dhisaysaa kadib waa lacagtii shubaysaa markaad yani dhamaysid. waa yani kalsoonida unsaad suuqa u abuurtid weeyaan. taasaana ugu muhiimsan. insha allah caqabaadkii waxaas aan lasoo kulannay insha allah kolley way jiray caqabadaha badan way jiraan, yani wax kasta perfect ma dhacan. challengeyo badanna way yimaadaan markay meesha shaqada timaado insha allah. videoyada kale soo socda ayaan insha allah inagu tusi doonaa waxa ka dhaca site-ka iyo waxyaabahaas loo manage gareeyo. insha allah waxaan rajaynaynaa in nagu soo biirtid, sidoo kale nagu soo biirtid like-ta iyo share-ka insha allah. ana la socotid. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan ila joogay Engineer Axmed Kamaando.